miyuu islaamay streamerkan caanka ah ee lagu magacaabo Aishow Speed 24 saac oo la soo dhaafay waxa baraha bulshada qabsaday ninkan oo qamiis iyo cimaamad wata masaajid ku jira oo tukanaya sidoo kale kitaab quraan ah oo isku dayay inuu akhriyo in badan oo kamid ah shacaaraadka islaamka ayuu soo bandhigay ugu horreyn waxaan ka codsanaa muuqaalkan inaad like saarto una sii share gareedo dhammaan saaxiibadaada kale page-kan waayaha dunida aad ku soo biirto aad follow dhahdo Aishow Speed waa mid kamid ah youtuberada adduunka ugu waaweyn wuxuuna tagaa dhammaan wadamada caalamka Arab, Afrikaan iyo Caddaan intaba waxaana lagu yaqaanaa oo uu caan ku yahay wadan walba oo uu tago inuu live ka soo galo meelaha wadanka ugu quruxda badan kadibna uu soo bandhigo dadkaas dhaqamada gaarka ah oo ay leeyihiin dharka ay dhaqan ahaan u xirtaan cunooyinka ay cunaan iyo waxyaalo badan oo ku saabsan wadankaas ugu dambeyn ninkan wuxuu tagay mid kamid ah wadamada Carabta maadaama uu wadan muslim ah joogay diinta islaamkuna ayba asal u tahay dhaqanka dadka muslimiinta ah dhalinyaro Carab ah oo muslimiin ah ayaa ninkan waxay u xireen qamiiskii iyo cimaamadii iyo baashi madoobeed oo Carabtu dhaqanka ay u lahaayeen ay madaxa ku xira jireen kadibna masjidka ayay u wadeen waa kan asagoo nin dhalinyaro la socda oo masjidka u sii socda oo ku dhawaaqaya erayo ah waxaan u sii soconaa masjidka waxaan rabnaa inaan tukanno asagoo waliba si gabay camal ah u dhahaaya wiilka kale oo dhalinyarada asagoo la kaftamaya ayuu leeyahay ha ku heesin hadallada marka koowaad wuxuu ku bilaabay assalaamu calaykum sidoo kale yaa Allah ayuu dhahayay ugu dambeyn masjidka ayuu geeyay qaybta weysada ayuu tusay oo waa uu weysaystay kadibna masjidka ayuu galay oo ninkan dhalinyarada oo muslimka ah oo tukanaya ayuu ka daba tukanaya sida salaada xarakaadkeeda uu u sameeyay oo kale ayuu u sameeynaya kadibna kitaabii quraanka ayuu tusay oo kitaab quraan ayuu soo qaatay sida inuu akhrinayo oo kale ayuu u kala bixiyay ugu dambeynna wiilka dhalinyarada ee muslimka ah kitaab jaamac ah ayuu wuxuu u siiyay hadiyad ahaan